kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Hagan Media kuna soo dhawaada wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo dunida inteeda kaleba qodobada aan idiin helnaa waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh oo guul daro weyn kala kulmay qorshihiisa doorasho qof iyo cod ah maxaa sabab u ah xog ayaan idinkaga haynaa Somaliland oo burbur xooggan dhex jibaaxaysa iyo Djibouti oo dawladda Soomaaliya ku garab siinaysa gacan ku dhigista gobolka Awdal Puntland oo ciidamo awood badan loo dhisayo taageerada Imaaraadka Carabta iyo Deni oo jidkii RSF Suudaan qaaday Jubaland oo shuruud adag hor dhigtay Xasan Sheekh Maxamuud heshiis ay la gaarto iyo Axmed Oobe oo guusha ku sii dhawaanaya qodobada dibadda waxaa kamid ah Israa'iil oo daha ka qaaday duulaan Turkiga ay ku qaadayso iyo Erdogan oo diyaargarow xooggan ku jira qodobadaas iyo kuwa kale oo dahsoonayaan daha kurgu doonaa daqiiqadaha nagu soo foolay korsintaana gudgelin faafahinta daawada ku soo bir qaybaha kala duwan ee booggeena ku leenahay baraha bulshada muuqaalkana shargare waa asxaabtada la wadaag aan ku bilaabo daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guul daro weyn kala kulmay qorshihiisa doorasho qof iyo cod ah muddo 4 sano oo ka shaqeynayay iyadoo durbadii banaanka imaanayaan waxyaabaha sababta u noqonaya muddo 4 sano ka badan madaxweynuhu waxa uu dadaal ku bixinayay hirgelinta hanaan doorasho qof iyo cod lagu sheegay kaas oo ku doonay xukunka inuu ku sii xajisto talada dalkan uu ku sii haysto qorshahan si uga shaqeeya madaxweynuhu waxa uu meelmariyay shuruuc kala duwan iyo dastuur cusub dalka uu sameeyay dhanka kalena uu maray dadaal badan oo malaayiin dollar ay kaga baxeen lacagaha dhulbaabka ka soo xarooday arrimo kale ee madaxweynuhu dadaalka ugu badan ku bixiyay sida xukunka ku sii xajisan lahaa iyo hanaan doorasho qof iyo cod lagu sheegay inkasta mucaaradku ay diidanayeen iyo maamulada Puntland iyo Jubaland sidoo kale markii ugu horeysay waxa soo iftiimay qorshahaasi inuu fashil xal ku soo ilaaday kadib go'aankii ka soo yeeray maxkamadda sare dalka maalmadii shalay kaas oo lagu laalay doorashooyinka galmudug looga dareeray dhamaadkii bishii la soo dhaafay dhowr ajenda oo kala duwan ee dibadii miiska soo saarmay kaas oo la xiriira waxyaabaha ka soo dhexiftiimaya go'aanka maxkamadda waa qodobka koowaad ee qorshe siyaasadeed in doorashada galmudug dib loo qabto iyadoo la adeegsanayo markaasi nidaamka Muqdisho ay awood gaar ah ku leedahay ama ay ku samaysan karto oo madaxweyne Xasan haatan istusay qodobka labaadna waa qorshe maamul in markaasi dib doorashada markaasi loo xiro iyadoo heshiis siyaasadeed oo ka dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya galmudug iyo dhinacyada siyaasadda la gaariyo qodobka saddexaadna waa qorshe doorasho heer federaal in dhinaca markaasi galmudug laga faa'iideysto sidii ay qayb uga noqon lahaayeen nidaamka cusub ee doorashooyinka dalka iyo muranka ku saabsan dastuurka 2027 madaxweyne Xasan iyo haatan kaliya ka fikiraya qorshaha xiga iyo doorashada soo aadan sida xukunka ku sii xajisan lahaa isagoo aaminsan in taladu gacantiisa ay ka sii baxday isla markaana la aadayo doorashooyin dadban oo teendada la isugu tagayo waxaa sii iftiiminaya arrintaasi mucaaradka oo garab weyn u noqotay go'aanka maxkamadda isla markaana aaminsan in fadaaxadii doorashada galmudug ay noqon karto qiilka ugu weyn xilligan ugu marsoon karo in madaxweyne Xasan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya doorashooyinka gadaal ka riixayaan yihiin kuwa lagu kalsoonaan karin waxba kama jiraan isla markaana aan loo dhamayn taas oo keenaysa in xilligan laga fikiro qorshaha xiga in la qaato go'aan doorashooyin loo dhan yahay dalka uu aadayo waxaa hata laga fikiraya istiraatiijiyad markaasi wakiilada beesha caalamka miiska soo saari doonaan kulanka ugu horeeya ee mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya isugu keenayo waxaa la filayaa in dhowr qodob oo kala duwan markaasi laga doodi doono waxaase ugu muhiimsan in doorashooyinka noqon doonaan kuwo daahfuran oo markaasi qof iyo cod lagu qaban doono balse madaxweyne Xasan iyo dowladdiisu waxay ka fikirayaan in qaataan hanaanka doorashada dadban oo teendada la isugu tagayo inkastoo markasta afisyooni doorashada madaxweynuhu ay ka dhacayso dana xildhibaanada baarlamaanka labadiisa gole ayaa marka hore laga doodaya in doorashooyin dadweyne ay ku yimaadaan inkastoo isku haysto hanaanka axsaabta badan ay ku imaaneen in kaleeto mucaaradku waxay qabaan doorashooyin toos in loo dareero laakiin dad kala diiwaan gelin oo iyaga oo markaas sidooda ay codka dhiibtaan xildhibaanadu ku loolamaan seejooyinka codbixinta iyagoo aan xisbi ka tartamin halka dowladda federaalka ee Soomaaliya doodadii hore xilligan ay si daciifayso kadib go'aankii maxkamadda sare ka soo yeeray madowga xooggan ee ka dhex jira hay'adaha dowladda iyo madaxweyne Xasan oo cabsi xooggan ka muujinaya habka wax ku wada haatan ayaa xilligan keenaysa inuu qaato go'aan ka duwan iyo diyaar garowga doorashada dadban si xildhibaan uga soo saarto maamulada gacantiisa ku jira xilligan madaxweyne Xasan waxa uu haystaa maamulada galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo waqooyi bari iyo gobolka Banaadir iyadoo xildhibaanada ka soo baxaya ay dhammaantood noqon doonaan kuwa gacanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku jira soo saaristooda xitaa xildhibaanada ugu tirada badan ee reer waqooyiga ah ee Muqdisho lagu dooran doono balse arrimahaas oo idil waxa la aaminsan yahay in doorashooyinka aysan ka saacidi karin madaxweyne qaran marka loo eego labadii doorasho ugu dambeysay dalka laga qabtay midna madaxweyne farmaajo uu madaxweyne ku noqday midna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu talada dalka ku qabtay kuwaas oo dhammaantood ba sidii wax loo maamulo si ka duwan ay markaas xildhibaanadu u codeeyeen mana jirto xildhibaan lagu kalsoonaan karo inta la soo saaray inuu codkiisa ku siinayo isaga waatan keenaysan cabsi xooggan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan uu wajaho waxa iftiimaysa madaxweynuhu uu cagta saaray wado uu ku lumin karo xukunkiisa isaga xitaa xubnaha badan oo garbiis ah ay u muuqanayaan kuwa ka sii leeqanaya waxaa sidoo kale jira tuun xooggan oo la xiriira hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee Madoobe iyo Liibaan oo galmudug la geen doono in labadaba noqon karaan kuwa madaxweyne Xasan aan garabkiisa ka soo muuqan isla markaana cidda ay doonaan xildhibaan ka soo dhiga doona doorashooyinka soo aadan
cabsida xooggan ee madaxweyne xasan soo fosaartay wax la xiriirta in xukunka uu lumiyay maadaama dadaal dheeraad ku bixinayay muddooyinka ugu dambeeyay si talada dalka ku siyaasan lahaa isaga oo geed dheer iyo mid gaaban u fulay in arrintaas uu xoojiyo ammaanka caasimada ay gacan bir ku qabtay ciidamo badan ayaa la diyaariyay mucaaradkana waa loo awood sheegtay balse haatan waxaa muuqanaysa in mucaaradku ay heleen fursadii ugu weyneed oo ka faa'iideysan karayaan taas oo la xiriirta in madaxweyne xasan iyo dowladdiisa ay ku kala qaybsiin habka doorashada loo wajahayo waxaana muuqanaysa in hay'ado kala duwan oo dowladda madaxweynaha hoos imaanaya xilligani ay kasii xarag furanayaan marka laga go'aanka maxkamadda sare ka soo yaray iyo gudoomiye Suleymaan oo qaatay wadda ka duwan mid madaxweyne xasan oo la doonayay halka inta badan siyaasiyiinta madaxweynaha ku hareeraysan loo arko inay kula joogaan danaha ku meelgaarka isla markaana marka la gaaro marxaladda kala guurka rasmiga iyo doorashooyinka ay garabkiisa ka bixi doonaan nin walbana uu aadi doono halka uu siyaasadiisa ka dhex arko dhanka kale marka laga eego dowladda federaalka Soomaaliya waxay muuqanaysaa inay xilligan markii ugu horeysay luminayso qorshaheedii doorasho qof iyo cod ah muddo dheer ku taameysay sababta ugu weyn ay tahay arrimahaas oo isbiirsaday iyada oo dowladdu ay adkaysi weyn ku lahayd doorashooyinkaas in hirgelinayso wakiilada beesha caalamka ku hirgelisay mucaaradka ka diiday soo jeedin kasta oo dhankooda ka timid haddana waxaa muuqanaysa in xilligan marxaladda dowladda federaalka Soomaaliya ku jirto ay tahay mid adag isla markaana ay ku soo adkaanayso hay'adaha dowladdu inay sii hirgeliyaan qorshahooda kuna istigeystaan go'aanada ay markii hore gaareen dhanka kale maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa u riyaaqsan qorshaha ka soo dhex yeeray hay'adaha dowladda kala qaybsanaanta xilligan soo baxaysa iyo madaxweyne xasan maxamed fashil kale xad la kulmayo taasoo keeni karaysa in talada dhulka soo dhigay isla markaana mar kale mucaaradka dhinacyada kala duwan Puntland iyo Jubbaland qayb ka yihiin go'aanka madawista ay gaaraan iyagoo la kaashanaya hay'adaha dowladda madaxweyne xasan maxamuud waxa uu wajahayaa xaalad kama dambaysa waxaase kaga sii daraysa kacdoonka gudaha kaga soconaya dhulboobka dhibaatooyinka ka dhashay iyo dadka ka kacdoomay ayaa dhibaato xal ku sii haya taasoo madaxweyne xasan sii daciifisay taageeradiisa gudaha caasimada ku haystay waxa uu weyn markii hore loo arkay madaxweynuhu ku tashanaya waa taageerada markaasi ay lumiyeen mucaaradka iyo sidoo kale in hay'adaha dowladdu ay yihiin kuwa shacabku markaasi kalsooni buuxda ka haysta balse arrimahaas oo idil waxay meesha ka baxeen markii markaasi banaanka ay timid fadeexada weyn dhulboob kala xiriirtay taasoo sii xogeysatay isla markaana dad badan oo reer Muqdisho oo madaxweyne xasan iyo dowladdiisa taageersanaa ay xilligan safkeeda ka baxayaan iyagoo ka soo horjeeda sabab la xiriirta dhulboobka xargaha goostay oo madaxweynaha taageeradiisa si weyn hoos ugu dhigay si kastaba haatee fashilka qorshaha doorasho qof iyo cod ah ee madaxweyne xasan maxamuud wuxuu noqonayaa mid mar kale marinaya madaxweynaha haatan xukunka haya wadada lamid wadadii uu maray madaxweyne Farmaajo kaas oo doorasho qof cod ka shaqeynaya balse laga diiday lagana ogolaan waayay inkasta oo markii dambe hab awood ay ku dhisan tahay iyo ciidamada la soo baxay xukunka looga tuuro Farmaajo laguna qasbay inuu aado doorashooyin toos ah oo dadban kuwaas oo ugu dambeyn madaxweyne xasan xafiiska dalka ugu sareeyay inuu tago sabab waha qaybaha hore ee warka haga media ayaa daawada la socotaan markana Somaliland waxay cagta saartay wadadii burburka iyada oo Djibouti dowladda Soomaaliya ay xilligan ka garab siinayso gacan ku dhigista gobolka Awdal deegaanada waqooyi Somaliland gaar ahaan gobolada Awdal iyo Salal waxa ka soo iftiimaya dagaal xooggan halkaas ka soconaya jimcada laga aasaasay iyo qabiilada la iska horkeenay iyada oo Somaliland ay sheegeen shacabka ka qaadeen gacanta ku dhigan hub iyo gaadiid dagaal oo ay wateen qaar kamid ah milishadka halkaas lagu abaabulay waxaana ku eedeeyeen dowladda Djibouti in hub iyo gaadiid ay saanad kala duwan ka soo gelisay xuduudka iyadoo arrintaas ka shaqeynaysa dabka horumarinaysa maamulka xir waxay ku andacoonayeen xukuumadda Djibouti ay markaasi ka shaqeynayso sidii loo kala qaybin lahaa bulshada goboladaasi ku nool Awdal iyo Salal isla markaana la doonayo halkaasi in kacdoon xooggan laga abuuro si dowladda federaalka Soomaaliya fursad ugu hesho kala qaybinta bulshadan iyo halkaasi qallasaha laga abuuro iyadoo jumhada xooggan laga abuuro durbadiiba kuwaas oo la filayay in kacdoon xooggan oo dhanka hubeysan ay sameeyaan marka qallasaha iyo dagaalada qabiilku sii xoogistaan iyada oo beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise dagaalo dhaxay halkaasi ka soo baxeen toddobaadkii la soo dhaafay dagaalada kuwa lagu wabay dad badan ay ku dhinteen Djibouti-na arrintaasi weli kama aysan hadlin laakiin eedda ugu badan Soomaaliya waxay dusha ka tuuraysaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Djibouti kuwaas oo labadaba ay ku eedeynayso inay ka shaqeynayaan kala qaybinta bulshada goboladan ku nool si halkaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya fursad ugu hesho maamul ay kala yeegleesho xukuumadda Soomaaliya lama oga qorsheedan rasmiga ee gobolkan ay ka leedahay iyo sidoo kale in arrintaas ay wax ka jiraan laakiin horey mas'uuliyiin kala duwan gobolka ka soo jeeda ay dowladda Soomaaliya u sheegeen inay ka dalbadeen gargaar xooggan oo la xiriira inay kala shaqeyso qorshaha majaha lagu xaabinayo maamulka Soomaaliland ee gudaha gobolada Awdal iyo sidoo kale Salal iyo ku hareeraysanba halkaas oo beelaha Samaroon iyo Ciise ay degaan si looga soo xarig gooyo Soomaaliland isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya maamul hoosmaada looga dhiso Djibouti oo xuduud la wadaagto dhulkani ayaa si weyn uga shaqeyn karaysa gudaha dowladda federaalka Soomaaliya doonisteeda iyada oo qorshu u yahay in ciidamada halkaas laga dejin karayo mar wax laga weydiiyay siyaasiyiinta markaasi majaraha qorshaha maamul dhisida Awdal State ayaa waxa uu sheegay in xilligani ay diyaar u yihiin hirgelinta qorshe walba laakiin u baahan yihiin taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Djibouti taasoo hadii la helo ay sheegeen in hirgelin karayaan wax walba oo doonisteeda ku saabsan ku aadan in maamul halkaas laga yeegleelo tani waxay dhowr jab weyn ku noqon kartaa maamulka Cirro waana mid keentay in haatan ay hawlgal xooggan qaadaan iyadoo ciidanka ugu badnaa lagu daabulay dhulka haatan dagaaladu ka soo iftiimayaan maamulka Cirro go'aan ku gaaray in la soo qabto saraakiil iyo xubno lagu eedeynayeen dagaalka ay hurinayaan sidoo kale maamulku waxay soo bandhigeen gaadiid dagaal oo nooca bilaha loo yaqaan ilaa 3 gaari iyo hub iyo tigniin kale ay sheegeen in gacanta ku soo dhigeen iyadoo ay sheegeen dhanka kale in gacanta ku hayaan dad badan oo markaasi maxaabiis ah oo hubkan ku dagaalamay isla markaana beelaha kala duwan ka soo jeeda waxaana sheegay maxkamadda la soo saari doono iyagoo ku eedeynaya markaasi in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Djibouti ay ka amar qaadanayaan iyaga oo ka shaqeynaya kala qaybinta Somaliland iyo si qalas halkaas looga abur lahaa
maamulka Ciro oo si weyn uga shaqeynaya badbaadinta xukunkiisa Hargeysa iyo sidoo kale maamulka uu noqday si haysta ayaa xilligan awood u isugu geenaya gobolada waqooyi si markaas uga hortago dhibaatooyinka halkaas ka soo ifbaxaya iyo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya gobolkani ay ka leedahay dhanka kale xukuumadda Soomaaliya si uu qudranaysa ka hor sanadka cusub in hadii fursad ay u hesho maamul halkaas laga yeelo ay dibadda u taagto si ay qayb uga noqdaan doorashooyinka soo aadan heer federaal caalamsiyahay in dadka goboladan ku nool si weyn u diidan xukunka Hargeysa ay markaas hadii ay kacdoomaan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya ka faa'iideysan karayaan iyagoo iigleeli kara maamulka xilligan ee Villa Soomaaliya doonaysa halkaas inay dibadda uga taagto daawada hadii aad ku sabtaa qaybaha kala duwan ee boogeen aan ku leenahay baraha bulshada ku soo bir muuqaalkana la garee oo asxaabtada la wadaaga markana Puntland ayaa ciidamo awood badan loo dhisayaa iyadoo taageero ka helaysa dowladda Imaaraadka Carabta Dani ayaan u muuqanay waqti inuu qaaday jid la mid midkii RSF Suudaan ee Xamdaan macluumaad hoose oo la helay waxay iftiiminayaan Imaaraadka Carabta maamulka Garowe ay ka ballan qaadeen dhismaha ciidan cusub oo awood leh isla markaana RSF Suudaan oo kala loo tababarayo sidoo kale loo qalabeen doono waxa la aaminsan arrintan Dani ugu marmarsiyooday in uu markaas maareyn waayo dhaqaale tarbeel oo ka baxay ciidamada dhawaana Puntland diiwaan gelisay dowladda federaalka Soomaaliya laga soo dhambalay lagana soo reebay markii halkaas mushaar ka qaadanay muddo dhowr bilood ciidanka Generaal Jimcaale kuwa beesha kasay galkacay fadhigoodii ee Istanbul ciidamada Carmo iyo kuwa kale oo Dani uu diiwaanka Puntland ku daray ayuu xilligan maare u leeyahay waxaa la sheegay qorshaha Imaaraadka Carabta inuu bandhigay balse ay sheegeen in arrin weyn oo Puntland ay kala shaqeynayaan jirto taas oo qorshaha dhow ee markaas sanadka soo aadan 2027 lagu yeeleeyo ciidamo si gaar ah u tababaran la qalabeyn doono xiriir tababar la gelin doono isla markaana Imaaraadku ay si buuxo u yeeleen doonaan waxa la aaminsan qorshahan uu yahay mid fog oo Imaaraadku ay ka leeyihiin in xukunka Soomaaliya ku farageliyaan ciidankan awood badan u lahaan doono iyagoo gaadiid dagaal oo tarbeel hub iyo noocyo casri ah ku qalabeyn doono tababar casri ah loo fudin doono ciidamadan xiriir kala duwan lagu xareynayo waxaana la aaminsan in sida ciidanka Generaal Xamdaan ee gurmadka degdega ee Suudaan dhibaatada xad la ka geystay loo tababari doono loo diyaarin doono Dani waxa absi asagu kama qaba arrintaas danna kama lahan laakiin waxa uu muhiim ah ciidamadaas inuu helo dhaqaale iyo mushaar joogto ah xitaa hadii ay markaas xiriyahaas tababar galayaan kuna qanacayaan hubkaasi sanadkiisa inay qaataan iyadoo noqon doona ciidamo casri ah si gaar ah u tababaran xilliga uu doonana Villa Soomaaliya ku carqaladeyn karo duulaan ku qaadi karo koonfurta Soomaaliya si kastaba haatee Imaaraadka Carabta si weyn u qudranaya burburinta Soomaaliya iyo doonaya in xilligan waddan la mid Suudaan uu mariyo Soomaaliya uu qaadsiyo taas oo keenaysa in xilligan uu soo bandhigo magaalada Garowe maamulka jira yagleelida ciidamadan sida gaarka ah u tababaran dhibaatada lixaad la ka soo geystay qayb ka mid ah dalalka kala duwan Afrika iyo Asia tani oo xilligan cabsi xooggan laga muujinayo si kastaba haatee xukuumadda Abu Dhabi ayaa xiriirka loo jaray sanadkii tagay markii dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay inuu kala qaybinta Soomaaliya si weyn ugu howlan tahay taa oo keentay in bedelkeeda Sacuudi Carabiya ay soo gasho dhanka kale xukuumadda Abu Dhabi ayaa ka shaqeynaysa in madaxa u hoos mariso markasta Soomaaliya iyadoo ka caareysan talaabooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday ee markaas cilaaqaadkii Imaaraadka hoos lagu dhigay waxaana xiriir toos ah la qaar kamid ah maamulada Soomaaliya ka jira sida Somaliland, Puntland iyo Jubaland oo dhamaantood ba ay dhaqaalahooda iyo dekedahooda gacanta ku hayso qaybaha dambe ayaan ku sii shaqeynaa daawada markana Jubaland ayaa shuruudaha ku xirtay hor dhigtana madaxweyne Xasan Maxamuud heshiis ay la gaarto iyadoo Axmedoobe wadada guusha cagta uu saaray kuna sii dhawaanayo in guud ahaan maamulkiisa uu dib u soo ceshaday awoodii uu lahaa maamulka Axmed Maxamed Islaam waxa la soo wariyay in dowladda federaalka Soomaaliya marashiis ay ka dalbatay dadka soo dhaafay isla markaana la sheegay in Axmedoobe uu ku wargeliyay xukuumadda Soomaaliya shuruudo adag oo ay tahay markaas inay qaato taas wuxuu ka dambeeyay diyaar u yahay inuu la qaato Villa Soomaaliya wax kasta oo ay doonayso isla markaana ku daba fiilay madaxweyne Xasan Maxamuud waa Axmedoobe xilligan doonaya in aqoonsi xooggan maamulkiisu helo ayaa sheegay Villa Soomaaliya inuu kaga baahan yahay si official ah oo muuqata u saaraan bayaan ay ku cadeeyeen aqoonsiga maamulka Jubaland Axmedoobe inuu madaxweyne ka yahay isla markaana diyaar u yahay inuu hoggaansamo shuruudaha dowladda federaalka Soomaaliya dhankeeda soo jeedinayso way kamid tahay in doorashooyin ku waafaqdo iyo dhammaan doonisteeda la xiriir marxaladda kala guurka isla markaana madaxweyne Xasan isagoo isbaysan doonaan xilli doorashada soo aadan dhanka kale Jubaland ayaa shuruudaha kaga sii dhigtay in dhammaan gobolka Gedo ay markaas hoos keento dowladda federaalka Soomaaliya Axmedoobe degmooyinka gacanta ugu jira wali dowladda Soomaaliya ay noqdaan kuwa markaas ka caagan oo maamulka Jubaland si toos uga harmiyo isla markaana ciidamada ku sugan balad xawa isku ballaariyeen garbaarey markaas baar dheere luuq ilaa degmooyinka kale ceelwaq xitaa gobolada markaas Jubaland oo idil inta xorta ah balse dowladda federaalka Soomaaliya wali waxay ka mirmeeraysaa qodobka ugu muhiimsan ugu horeeya oo ah in Axmedoobe loo aqoonsado madaxweyne sharci ah maamulkaas ka jira muddo markaas tan iyo dhamaadkii 2024 markii doortay Axmedoobe dowladda Soomaaliya diidan sharci ahaanshiyaha maamulkaas iyo xilhaynta madaxweyne Axmedoobe iyada oo ku eedeynaysa inuu yahay nin markaas awood ku jooga Kismaayo oo aan loo aqoonsanayn hogaamiye rasmi ah balse uu yahay hogaamiye markaas xukunka boobay sharci dara waana takatay in buddiga khilaafka Axmedoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasi ay noqoto kolkana adaawadayaal dhanka dibadda Israel ayaa ka qaaday duulaan Turkiga ay ku qaadayso iyada Erdogan dhankiisa uu diyaargarow xoogan kaga jiro sidii uu isaga difaaci lahaa maamulka markaasi Netanyahu ee xilligan isku diyaarinaya inuu duulaan ku soo qaado markaasi dhankaas iyo Ankara sida uu shaaca ka qaaday wasiirka hore difaaca Israel Yoav Gallant waxa xilligan si xoogaysanaya wararka la xiriira in dalka xiga kadib Iran ay duulaan ku qaadayso Israel uu yahay wadanka markaasi Turkiga
qorshahan ayaa imaanaya iyadoo mar kaleeto ay doonayso Israel in Mareykanka ku riixdo dagaal Turkiga ula galo halka Erdogan horey uu shaaca kaga qaaday inuu diyaarsan yahay hortaga talaabo kasta oo dhanka Israel ka timaada quwadahan waaweyn oo markaasi si weyn ugu loolamaya gudaha dalka Suuriya iyo wadamo kala duwan oo bariga dhexe ayaa xilligan is wajihi doona waxaana la aaminsan in Erdogan uu waqti hore ka sii gaashantay duulaankaasi dhanka kaleeto lama oga quwadani waxay kaga duwan tahay waa Tehran waa xukuumadda Ankara balse si weyn waxa looga dhursugayaa isdifaacida markaasi dhankaas iyo Turkiga iyada oo madaxweyne Trump dhowr jeer ka meermeeray qorshe loo soo jeedo in markaasi kala shaqeeyo Israel duulaanka Erdogan ay ku wajahayso maadaama saaxiib oo yihiin Trump iyo Erdogan dhanka kaleeto waa madaxweynaha markaasi Turkiga ayaa si weyn isagu u diyaarsan arrintaasi dagaal kasta oo ka yimaada dhankaasi Israel inuu iska difaaco guudaan daawada inta xukran warkaad kala socoteen haga media hadii aad ku subtaa qaybaha kala duwan ee boogana kulana baraha bulshada ku soo bir muuqaalkan share gareeyo asxaabtada la wadaag tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.